bishaaro idinkuna bilkhayr dhaha dadweynow shirkadda biyahel oo ah shirkad ka shaqaysa adeega keenista biyaha ayaa ah shirkad cusub oo dhowaan lagaga hirgeliyey caasimadda dowladdeegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga haddaba shirkaddani sidee ayay biyaha kugu keenaysaa macmiil waa hab casri ah oo aad kaga maarmayso biyihii gaadhi dameerka aad ka shuban jirtay waxayna shirkaddani cusub ee biyahel isticmaalaysaa gaadiidka booyadaha wareega ee biyaha ee haddii uu ku daashaday gaadhi dameer hadda waxaan ku hayaa biyahel nadiif ah oo ka dalbo shirkadda biyahel oo biyaha kugu keenaysa goob kasta oo aad ka degan tahay magaalada Jigjiga caasimadda dowladdeegaanka Soomaalida haddii ay ahaan lahayd dalabyada cadadka biyaha ee aad u baahan tahay laga bilaabo 10 foosto 5 foosto foosto ilaa ay jirigaanka 20 litir qaadka ah waxa uuna adeega shirkaddani biyahel ay isticmaalayaan gaadiid casri ah ee booyadaha wareega ee biyaha iyadoo qiimo macquul ah lagu shubayo biyaha kaasoo ah qiimihii gaari dameerka oo kaliya ee bulshoy ballanteenu waa biyahel adigoo aan isdhibin oo gurigaaga jooga shirkadda ayaa waxaa astaan u ah adeeg hufan oo degdeg ah biyo nadiif oo macaan qiimo macquul ah shaqaale u jajaban inay si hufan kuugu adeegaan isla markaana ku sifoobay raaligelinta macaamiishooda in yar aan kuu bidhaanshay haddii uu ku daashaday dhibna aad ku qabtay biyaha gaari dameerka ka bogsoo iska ilow oo horay u gaadh adeega casriga ah ee biyahel adeegani shirkadda biyahel waxaad kaga maarmaysaa dhibaatadii aad ku qabtay biyaha gaari dameerka ee haddii aad ka walwal qabtay goobaha biyaha laga soo dhaamiyo oo aan nadiif ahayn shakina uu kaaga jiray oo isticmaalka gaari dameerka xilliga habeenkii in lagu qaado biyaha bulaacadaha hoteelada iyo sidoo kale haddii aad ka walwal qabtay nadaafadda dadka wada gaari dameerka haddaba wixii faahfaahina waxaad kala xiriiri kartaan shirkadda biyahel telefoonnada shaashadda idinka muuqa ballanteennu waa shirkadda biyahel